wasiirka wasaaradda caafimaadka oo uu heliyo agaasimaha guud ee caafimaadka ayaa ku wareejiyay cisbitaalka magaalada Gabiley gaari ambalaas ah oo si weyn ugu baahnaa cisbitaalkaasi isagoo kormeer ku soo maray xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Gabiley iyo waliba xarunta dhimirka magaalada Gabiley ayaa waxa kale oo uu ku wareejiyay cisbitaalka TB-da ee magaalada Gabiley mishiin loo isticmaali doono leyrka sidoo kalena waxa uu xariga ka jaray dhisme lagu soo kordhiyay cisbitaalka guud ee magaalada Gabiley runtii gobol ahaan farxad aad iyo aad u weyn bay maanta noo tahay aad baan u soo dhaweynaa saraakiisha wasaaradda horumarinta caafimaadka oo wasiirkii agaasimihiiba socdaan ilaa 5 mashruuc oo qalab iyo adeeg isugu jira bay maanta gobolka runtii ay xariga ka jareen oo wasiirku xariga ka jaray gobol ahaan wasaaradda caafimaadka waxba la kala qarsan maayo aad baanu hoos tooga xamananay intii aanu wasiirka ka noqon wasiir xasan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa adeegyada caafimaad iyo waxyaalaha faraha badan leh ku soo kordhiyeen caafimaadkii gobolka haddii markuu leerku baqtiyo sida loogu shaqeeyo dadka patientka ee mar kastaba imanaya aad iyo aad baan anaguna waxa mas'uuliyadana saareen ugu wareejiseen anaguna waanu daryeelanaa waanu ilaalinaa imikana waxa ku sii wareejinaya agaasimaha cisbitaalka codsiga ah ee codsanay wasiirka iyo agaasimaha guud runtii oo kamid ahaa oo aniga walwal badan igu hayay oo ugu horeeyo ambalaaskan runtii laba jeer baan u qoray labada jeer jawaab sax ah ayuu wasiirku iyo agaasimuhu ay soo qoreen bil gudaheed oo ku helisay insha Allah taala waana ku helnaa sharaf weyn ayay noo tahay dhinaca kale inaanu maanta ilaa 4 mashruuc ma dhismayaal ma naan furin oo xariga kama naan jirin ilaa 4-5 mashruuc oo mid ay tahay dhagax dhig kuwa kalena ay yihiin mashaariic adeeg oo lagu horumarinayay dhinaca waxqabadka xagga caafimaadka ee ay wasaaradda horumarinta caafimaadku u igman tahay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen mashaariic muhiim ah xagga hooyada iyo dhallaanka iyo xagga umulaha ah oo lagu badbaadinayay umuraaci badnaa ee laga filayay inay timaado marka aanu service gari jirin waxa kale oo aan gobolka maanta aanu kaga qayb qaadanay dhinaca xagga TB-da oo mashiino muhiim ah oo aanu hore u keenay oo ahaa mashiinka digital x-ray-ga iyo bahalka la yiraahdo gene expert-ka aanu u sidnay mashiinkii dabka dhalinayay ee loo isticmaalayay mashaariicdaas oo dhammi waa waxqabadka wasaaradda horumarinta caafimaadka waxa intaana soo dhilaabantii si daba socoynay maaha inaynu samaano iyo inaynu sawir iska qaadnay inaynu waxaynu socoynay in adeegii caafimaad ee aan mas'uulka ka ahayn in agaasimaha uga mas'uulka ahayn jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda hogaamiye Musabbix Cabdi adeeg aan soo kordhinay ayaynu halkan soo kordhinay gaariga ambalaaska ayaan fursadda lagu qaaday koolka aad aan ugu yahay fursadda ayaan lagu qaaday dadka bukaanka ah ayaa loogu talagalay bifadlaka waxa la isku xantaa waa gobol aad u ilbaxo aqoonta Soomaaliyeed ilbaxnimadeedu markay doonto qabatahay bal yaari gaarigaas marka qof bukaana la waayo dadkii soo aan adeegga caafimaadka uga faa'iideysanayeen xanuunku yaraada oo carruurtii la talaalay xanuunka hadduu laga yaraado gaariga waxa soo warka kale iska taageeraya xogaa agaasimaha guud iyo basalaanka ka soo qaato yaani dhicin fadlakum waxaan furaynaa qaybtii UNFPA inoo soo qaybta hospitalka Gabiley ee umraha halkan waa qaybtii caafimaadka afka service-ka oo ilkaha iyo waxyaabaha kale raacay ku jiraan gobolka ayaa maxay dhistay emergency ballaaran oo lala tacaalo sababtoo ah gobolku wuxuu ku yaalaa wada dheer oo suuqida Itoobiya Soomaaliland shiralkuna ku badan yihiin sidaa daraadeed emergency-gaana waxaan aad ugu mahad celinayaa maayirka degmada oo noo dhisay waxa jira oo kale markii hore culays badan ka haystay shaybaarka isbitaalka laakiin imika aanu dayactir ku sameynay ballaarinayna shaybaarka isbitaalka isla markaana anagoo dhisnay store iyo farmasi cusub oo isbitaalku leeyahay waa Cabdisalaan Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley